بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bilaabeynaa sharaxaadana ayaan bilaabeynaa maanta waxaan qaadanaynaa simple present tense aan qaadanaynaa tense-ka labaad ayaan maanta qaadanaynaa hadduu aalid insha Allah taala markaan sala socono marka simple present tense is used for an action which takes place or happiness every day waa ficil dhaca maalin waliba ficil maalin walba dhaca ayaa la dhahaa simple present tense marka waa definition-kiisa wuxuu yahay marka is used for an action which takes place or happiness every day waa ficil maalin walba dhaca ayaa la dhahaa markaasi simple present tense marka subject plus verb plus s plus es plus ies plus object marka example marka tusaale marka affirmative ama statementiga oo simple present tense-ka ayaan fiirinaynaa marka I go to school waxaan aadaa school I go to school waxaan aadaa school waxaa ku qarsan meesha every day ayaa markaasi hiding ku qarsan marka waxaa leeyahay marka I go to school anigu waxaan aadaa schoolka ama waxaan aadaa schoolka maalin waliba he goes to school asigu wuxuu aadaa schoolka she reads ayadu waxay aqrisaa hal lessons casharadeeda every day maalin kasta marka simple present tense-ka wuxuu leeyahay rules ayuu leeyahay marka ama sharci ayuu leeyahay marka markii simple present tense-ka waxaad isticmaalaysaa su'aal ama question markii aad rabto in qof aad weydiiso waxaad isticmaalaysaa two things aad isticmaalaysaa do it does aad isticmaalaysaa marka qaabkii aad u isticmaalaysaa do it does marka ruleska oo simple present tense-ka oo do it does aad u isticmaalaysaa waxa kamid ah marka ugu hore do habkeed u isticmaalaysaa marka I we you they waxaad u isticmaalaysaa do aad u isticmaalaysaa I we you they waxaad isticmaalaysaa do aad u isticmaalaysaa uma isticmaali kartid does uma isticmaali kartid marka he she it ayadna waxaad u isticmaalaysaa does aad u isticmaalaysaa marka ayadna waxaad u isticmaalaysaa does aad u isticmaalaysaa marka aan u imaana marka examples marka ayadoo question marka raacsan tahay marka do I go to school anigu school miyaan aadaa mujeda do I go to school anigu school miyaan aadaa waxaad arkaynaa marka waxay macnaa qaadataa do waxay qaadataa ay qaadataa marka markii su-aal la dhigayo do I dhahana does I qalada ma dhihi kara marka maxaa yeele sharciga simple present tense ayaa diidaya marka midda labaad marka does he go to school asiga schoolka miyuu aadaa does oo ujeedisa maahan does waatana he waxay qaadataa does ay qaadataa marka does he go to school asiga schoolka miyuu aadaa lama dhihi karo marka do ma isticmaali kartid marka do ma dhihi kartid do he ma dhihi kartid qalad waa marka does he go to school asiga schoolka miyuu aadaa saddex does she read ayadu miyay akhrisaa her lessons every day cashareeda miyay akhrisaa maalin waliba does she read her lessons every day ayadu cashareeda miyay akhrisaa maalin waliba marka simple present tense-ka waa tense-ka labaad hore waxaan usoo qaadanay tense koowaad ayaan usoo qaadanay maantana waxaan arkaynaa simple present tense ayaan arkaynaa marka muhiimad waxay tahay marka simple present tense-ka waxa uu qaato subject-iga waxa uu qaataa ko subject-iga balas waxaa ku daraysaa verb baa ku daraysaa balas s aa raacsinaysaa balas es balas ies balas object marka waxaa kaloo muhiim ah inaad kala fahanto do it does ayaa muhiimadeed tahay marka hada bilaa tawfiiq marka qof walba waxaan weydiin doonaa su'aalaha weydiin doonaa